muuqaalkan wuxuu soo gaaray 7 saacadood ka hor maanta galinkii dambe ilaa iyo haddana cuntada aan cunay ma ogi sida xaalkaygu yahayna ma ogi waxaan sahwinayaa hurdada nasiinada waxaan fahmi la ahay Soomaali hadda waxaan ka hadlayaa waa qowmiyadda Soomaali ee ugu weyn uguna badan bariga Afrika kama hadlayo Somaliland Soomaaliya either state war waxa doontaa lagu dhaho waxaan ka hadlayaa Soomaaliye idin aaway xagee jirtaan dadka gobolka City ee degan meesha la yiraahdo Garbaciise ay ku soo dooshay qowmiyadda Canfar oo dhan oo iska soo kaxaysatay Djibouti kuwii deganaa Ethiopia Eritrea kuwii Canfarta deganaa inta is soo kaxaysteen ee ku soo duulay hal reer hal jufo ee hal magaalo degan ee gamka siinaya ee daawaneysaan qarniyadii 1900 ilaa 2019 waxaa la diiwaan galiyay Soomaalidu inay ahayd dadkii ugu halganka iyo dagaalyahansanaa gobonimo u dirirkii bariga iyo bartamaha Afrika hase yeeshee taariikhaheena oo idil waxay dib isku raamsadeen markii Soomaali lagu kala irdheeyay dhowr xuduudood oo loo kala magacaabay dhowr wadan Soomaalida degan Djibouti kuwa degan Ethiopia iyo kuwa degan dhulweynaha haatan loo yaqaan Soomaaliya ee dhowrka state u kala irdhoobay waxay isku kala yaqaanaan dhowr wadan hase yeeshee waxa ay wadaqaan dhalasho qura oo caalamka looga abtiriyo taasoo ah ninkan waa Soomaali xitaa haddii uu haysto baasaboorka Canada meel kale jirta oo sirtu ka qorantay ee aan ku dhadhansiiyo ninka Soomaaliga ahi waa caado qaate walaalkiis la dhashayna waxa uu ka jecel yahay wax uu dhunta mariyo inkastoo dagaalo colaado sokeeye iyo gobolka tropicalka ee dhulkeenu ku yaalo ilaahayna nagu abuuray ay jiraan hase yeeshee damiirka iyo dadnimada aad ku iibsanayso cirqigaaga abtirsiimadaada iyo halka aad u dhalatay waa sababta ama sifaha ugu xun ee loo noolaado kamana suuroodo cawaanta buddhistayaasha ee ku nool Asia hase yeeshee anagoo dad Islaam ah iimaanna leh ayaana laga helayaa dabeecadaas mana ahan wax qurux badan gobolka City waxa uu ku yaalaa mandiqad istiraatiiji ah halkaasoo ah wadnaha Ethiopia ay ka quudato agabyadeeda iyo badeecadaha ay kala soo degto dekedda Djibouti haddaba waa maxay meeshaasi gobolka City waxa maraqadka tareen ee Ethiopia iyo Djibouti isku xira haddaba waxa ay siisan la yihiin oomaankooda galila Ethiopiaanka kale ay ugu weyn yihiin Amxaarada iyo Tigreega in Soomaali oo ah qabiil minority ah oo ku nool dalweynaha Ethiopia ay haystaan qadki tareen ee dalkoo dhan quudanayay haddaba waxa la soo diray oo la soo riixay la iskana soo hormariyay Canfarta oo la yiri Soomaalida ka sifeeya meeshan mashruucan isirsifaynta ah waa mid Ethiopiaanka oo dhan ay isku raacsan yihiin inkastoo Soomaalida loogu afgobaadsanayo madaxdooda looguna hadal macaaneynayo waa dagaal qabiil bal ka waran Canfarta degan Djibouti kuwa degan Ethiopia waxa ay ka midaysan yihiin iyo dhammaan ummadaha kale ay ka mid yihiin xitaa Oromada Tigreega iyo qowmiyadaha kaleba in qadka tareenka magaalooyinka uu maro dhammaan laga isirsifeeyo Soomaalida in la dooxo hooyooyinka iyo caruurta ka soo jeeda reerka Ciise ee qowmiyadda Soomaali way ku faraxsan yihiin muwaadiniinta Ethiopiaanka ah ee aan ahayn asal Soomaaliga maamulka haatan ka jira dawladda deegaanka Soomaalida ma ahan maamul ciyaar ku yimid waa marihii ka dhashay halgankii jooxo ay ku soo halgameen hogaamiyayaashii ONLF iyo mujaahidiintii waqtigooda ku bixiyay xoreynta dhulka dawlad deegaanka Soomaaliyeed haatan loo yaqaano madaxweyne Mustafa Maxamuud Cumar oo ku abtirsada xisbi asal ahaan ka soo jeeda mujaahidiintii ONLF ayaan garan la'nahay sida qabow ugu jiro maslaxada ku saabsan arinta deegaanka Garbaciise iyo xasuuqyada isdaba jooga ah ee socda 2021 horaanteedii ilaa iyo haatan rag baa u golongolay rag baa god ugu jira rag baa raq iyo ruux la yahay hase yeeshee marka la isweydiiyo ama mowduucan la keeno miisaska wada hadalka waxa la yiraahdaa waa reer miyi ah oo islaayay ma dhici karto in qowmiyadan
iyo hal qoys ama hal qabiil oo Soomaali ka mid ah diya iyo daqarna la wadaaga qabaa'ilka kale ee Soomaalida ah ay isdagaalayaan dhowr sano qabaa'iladii kale ee Soomaaliduna ay daawanayaan. haatan waxaa la marayaa in dunida wadamadu isugu duulaan wada dhalasho asal iyo xidid abtirsiimo ama cirqi waxa loo yaqaano. waan ognahay sababta Azerbaijan uu Turkigu u saaciday dagaalkii Armenia, sidoo kalena waxaan ognahay sababta Iran oo wadan muslim ah ay uga soo horjeesatay Azerbaijan una taageertay Armenia dagaalkii Armenia. haddaba inaga oo waxyaabahaas oo dhan og isbedelada ka jira dunidana haatan la socona, miyay dhici kartaa in Soomaali walaalkaaya kula dhashay diya iyo daqar kula wadaaga magta iyo magacaba aad wadaagtaan aad ku daawato qoom ku soo duulay oo ka tiro iyo xoolo iyo tigaad badan, kuwa oo doonaya inay ka isirsifeeyaan ka gubaan berintii uu geela daaqsaday aabihii iyo awowgii isagoo irdhaysan oo aanan haysan hub iyo hanti uu isku difaacana baraha bulshada ay ku ooyaan ubadkiisa iyo caruurtiisa markuu dhinto dabadii. idinkaan dad khayr lahayn wanda walahayne idinkaan damiir ficil lahayn oon qaani hayne idinkaan danaynayn dad jira waxuusan daysteene dabka qaata diintayna fari inaan dagaalaaye la dirira ninkii gaaldila dogsaya qaraaye.